gudoomiyaha garabka haweenka Puntland shaqaalaha iyo macaamiisha Dahabshiil Group dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dhammaantiin waxaan idinka mahad celinayaa kasoo qaybgalka aad nagala soo qayb gasheen munaasabadda aynu maanta mar labaad ugu wanqali doono shirkadda Somtel oo maanta wixii ka horreeyay ahayd shirkad gaar loo lahaa balse maanta wixii ka dambeeya noqon doonto shirkad la wada leeyahay. la joogitaankiinu wuxuu noo yahay runtii dhiirigelin kasoo qaybgalkiinuna wuxuu noo yahay sharaf iyo karaamo. waadna sharafteen ilaahay hayna sharfo waad mahadsantiin. runtii anigoo ku hadlaya magaca shirkadda Dahabshiil Group waxaan salaan qiimo badan idinka sidaa gudoomiyaha shirkadda Xaaji Maxamed Saciid Ducaale iyo madaxda sare ee shirkadda Dahabshiil Group oo aan runtii munaasabadan qiimaha badan aan nagala soo qaybgelin duruufo jira awood. maanta waxaynu halkan u fadhinaa inaanu macaamiishayada iyo ganacsatada kale ee Soomaaliyeed gaar ahaan reer Puntland aanu u soo bandhigno saamiga aanu ka bixin doono shirkadda Somtel Puntland. runtii shirkaddaasoo hadda qaangaadha maraysa xilligii midhaheeda la goosan lahaa annaguna aanu koritaankeedii kobcinteedii iyo daadihinteediiba dhabarka u soo ridanay. maanta waxay maraysaa heer dhammaan networka fariijkeedu uu marayo Puntland oo dhan gobolladeeda tuulooyinkeeda iyo degmooyinkeedaba uu networka fariijkeedii joogo. waxaa intaasi dheer inay leedahay dhammaan adeegyadii looga baahnaa shirkad isgaadhsiineed oo caalami ah ay yeelan lahayd. waxay leedahay runtii internet xawaarihiisu aada u sarreeyo hadduu yahay 4G 3G ISP. sidoo kale waxay leedahay voice adduunka meeshii aad doonto lagala soo hadli karo adiguna aada u wici karto si qiimo jaban. waxaa intaasi ku dheer mashruuca fiber optiga oo ah internet xawaarihiisu aada u sarreeyo kaasoo runtii qayb ka qaadan doona inuu kor u sii qaado xawaaraha internetka ee Somtel. runtii Somtel waxaanu soo gaadhsiinay meel ay u lismayso ciddii hadda lisata ee hadhuga hoos dhigata. in badan bay macaamiishayada iyo dadweynaha reer Puntland yidhaahdeen maxaa shirkadda keligii inu haysataan oo aad igu bixin weydeen saami. runtii waxaanu leenahay maanta gacmo furan ku soo dhowaada shirkaddii oo aan kaca ku faynin oo dhaqaaqday ayaa baanu idinku baaqaynaa ku soo dhowaada baan idin leeyahay. runtii waxaa jooga madax badan oo horteyda fadhida wakhtigooduna uu aada u qaali yahay. mar rabo inaan hadalka kusii dheeraado mar labaad iyo mar saddexaadba waan idin mahad celinaya kasoo qaybgalkiina. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.